subaxdii xilliga hore markay ahayd Kaana waxay ag fadhiday geeska webiga iyadoo markaasi gacmaheeda ay ku hoos jiraan maradeeda. Toshihiro isagoo hortaysan ayuu dhinaceeda u soo dhaqaaqay isagoo markaasi eegayo geedihii uu xalay reen ku jiray. Labada nin waxay go'aansadeen inay is ogaadaan runta markaasna ay ka tashtaan waxay ugu samayn lahaayeen Kaana. Markaas ayuu weydiiyey Toshihiro xilli hore ayaa soo kacday. Kaana uma aysan jawaabin sababtoo way fakaraysay. Reen wuxuu ku jiray geedaha gadaashooda asagoo Kaana markaasi isha ku hayo. Wuxuu markaasi cunay khudaar asagoo markaasi isku dayay inuu inta calooshiisa ku sii hayo. Wuxuu maqlay sharqan kadibna markii uu soo eegay wuxuu arkay haweeney gadaashiisa marayso. Way istaagtay kadibna way soo jeesatay. Reen wuxuu la yaabay quruxdeeda aad u badan. Waxay lahayd indho aad u qurux badan oo weligiis uusan arag. Tinteedana waxay ahaayeen kuwo dhaadheer oo sii daysan taasoo ahayd mid la yaab leh gabdhaha tuuladan jooga kuwaasoo ahaa mar walba kuwo tintooda kor u xirta. Reen wuu aamusnaa asagoo la yaaban quruxdeeda saa'idka iyo sidoo kale qaabka ay si aamusan ugu eegaysay. Si kadis ayay u dhoola cadaysay markaasna Reen neefta ayaa ku dhegtay asagoo aad ula yaabay nuurka ka baxaya. Waxay dhoola cadayn yara sidii inay kala labeynayso kale inaysan qof aysan garanayn markaasi la hadasho. Isagana wuu u dhoola cadeeyay asagoo rajeynaya inay u aragto ninaan dhibaato wadan intay u arki lahayd nin xun oo geedaha gadaashiisa ku dhuumanaya. Si kasta ha ahaatee markii uu dhoola cadeeyaba isla markiiba way isbedeshay markaasna afkeeda wuxuu noqday mid aad u weyn. Tinteedina waxay bilowday inay sabayso sida daruur madoob oo kale. Si tartiib ayay u soconaysay aad ayuuna u naxay markuu arkay tinta oo afaysan sidii seeftii oo kale. Reen wuu istaagay umana uusan dangelin inay Kaana arkayso markaasna gadaal ayuu u baxay. Seeftiisa ayuu markaasi damcay inuu la soo baxo. Naagtiina hore ayay isu socotay isna markaasi cabsi ayaa ku jirtay. Markaas ayuu wuxuu gartay haweeneyda inay Yokai tahay. Haddii ay meesha joogtana waxaa laga wadaa Toshihiro iyo Kaana waxay arkayeen waxa dhacaya. Markaasna Toshihiro afkiisa wuu kala furnaa. Kaanana way istaagtay gacmaheedana waxba kuma jirin. Meeyay galoofiskaagii ayuu weydiiyey Toshihiro. Kaana markaasi ma aysan u jawaabin kaliya Reen ayay eegaysay. Reen markaasi gadaal ayuu soo eegay wuxuuna arkay meel uusan u baxsan karin inaysan jirin. Markaas wuxuu damcay inuu gadaal u baxo laakiin tin ayaa isku duubtay hore ayayna u soo jiiday. Markaasna aad ayuu u cabsanayay Reen. Toshihiro markaasi Kaana ayuu kor u eegay. Maxaad samaysay ayuu weydiiyey. Labadiina hadalkiina waa maqlay habeen hore ayay tiri. Waan ka daalay beenta badan oo la ii sheegayo ayay dhaxday markaas iyadoo ilmeynaysa. Adiga awoogay ayaa tahay imana aada sheegin warkaasi. Toshihiro markaasi hadalkaas uu ka naxay. Aniga waan u socday inaan kuu sheego. Kaana markaasi madaxa ayay ruxday. Waxaan sugayay Yokai inay ii yimaado oo markaasi ii weeraro laakiin waxay heshay Reen. Taasi waxaa laga yaabaa inay kasii fiican tahayba. Asaga waa la dilayaa. Taasi waa Hario Nago. Asaga gebigiisa way kala jarjari doontaa. Kaana way naxday laakiin markaasi feer ayay duubatay. Kaana asaga waa la dili doonaa. Hario Nago uma naxariisan doonto. Adiga run ahaantii isagoo dhimanaya inaad aragtid miyaad rabtaa? Taasi aad ayay uga naxisay Kaana waxayna garatay waxa ay samaysay sida ay u xun yihiin. Maxaan sameeyey? Sidee ayaan u badbaadin karaa? Waa inaan guriga gelinaa. Toshihiro wuxuu ku orday Reen kaasoo markaasi galgalanayay asagoo isku dayay Yokai inuu ka baxsado. Kaana ayaa kaga hormartay wayna fariisatay iyadoo isku daysa inay ka soo jiido isaga. Hario Nago way dhoola cadaysay. Markii aan isaga ka takhaluso adiga ayaa ku xigi doona. Kaana markaasi waxay aragtay seeftii Reen oo tintu ku duuduuban tahay. Markaasi way soo jiiday isla markiina waxay bilowday inay ku kala goyso tintii ku duubnay lugihiisa. Soo carar ayay tiri markaasi iyadoo soo jiidayso. Reen markaasi wuu dhacay laakiin wuu isku dayay ugu dambeyn wuu soo cararay. Guriga gala ayuu ku qayliyay Toshihiro. Markaasi Kaana iyo Reen waxay ku ordeen dhinaca guriga Yoshi. Toshihirona iyaguba ka sii horeeyay. Gudaha ayay galeen albaabkiina way xireen. Markaasi Reen dhulka ayuu ku dhacay asagoo aad u naxsan. Banaanka markaasi waxay ka maqlayeen albaabka oo la soo garaacayo iyadoo isku dayayso Yokai inuu albaabka soo jabiyo. Aad ayay u naxeen markii ay maqleen sharqantaasi laakiin xoogaa kadib way joogsantay. Ma tagtay ayay weydiisay. Way tagi doontaa waqti kadib ayuu dhahay Toshihiro isagoo hees eegaya. Waan rajaynayaa midaas. Si Kaana ayuu ku jeestay. Maxaad iskaga siibtay galoofiskii? Waxay maqashay hadalkeeni xalay. Reen markaasi hoos ayuu eegay isagoo ceebeysan laakiin weli ma fahmayn sababta iskaga siibtay galoofiska. Waxay tiri waxay diyaar u tahay challenge-yada inay ka soo horjeesato. Reen mar kale ayuu naxay markuu maqlay albaabka la soo fujin rabo.
markaasi hal tin oo seef ah ayaa derbiga soo gashay Reen madaxiisa korkiisa. Hadda mar kale galoofiska xiro ayuu dhahay Reen. Markaasi Kaana madaxa ay ruxday. Waan diidanahay inaan mar kale iskariyo ayay dhahday iyadoo fiirinaysa gacanteeda. Gacantii waxay bilowday inay ifto. Waxaan rabaa inaan ogaado waxa aan awoodo. Labadii nin intaysi waxba qaban ka hor, Kaana ayaa markaasi gees u tuurtay waxayna furtay albaabkii. Ilkaha ayay isku xogatay, markaasna waxay u dhaqaaqday dhinaca Haryanaago. Markaasi waxay u dhoola caddaysay si aad u cabsi badan. Waxaan u jeedaa inaad u soo baxday dhammaadkaadii. Adiga mar hore ayaad hal mar dhimatay, haddana waad dhiman doontaa. Waxaanan diyaar u ahay inaan cadaabta kugu cesho. Kaana markaasi uma isa jawaabin, waxayna isku diyaarisay weerar. Haryanaago markaasi waxay u soo dirtay tin aad u afaysan dhinaca Kaana. Laakiin Kaana markaasi gacanteeda ayay kor u qaatay, waxayna iska difaacday weerarkeedii. Yokaydii aad ayay u naxday, markaasna waxay bilowday tin aad u badan inay dhinaceeda u dirto, taasoo ay dhammaantood Kaana si fudud iskaga difaacday. Kaana markaasi way dhoola caddaysay, iyadoo dareemaysa awoodda aad u tir badan jirkeeda ku jirta, waxayna markaasi weerartay Yokaydii. Gacanteedii bidix ayaa markaasi waxay qabatay dhuuntii bahladda, xooggeedoo dhanna ayay bilowday inay ku ceejiso. Yokaydii gadaal ayay u dhacday, Kaanana korka ayay ka fuushay, iyadoo weli xooggeedoo dhan ku ceejinayso. Yokaydii indhaheeda ayay soo baxday, ugu dambeynna Kaana ceejin ayay ku dishay. Kaana kadibna way istaagtay, waxayna daawatay dhammaan tintii bahladda oo madaxeeda dib ugu laabanayo. Kaana way dhoola caddaysay, Toshihiro iyo Reenna agteeda ayay soo istaageen. Yokai ayaa gacmahaaga caadiga ku dishay ayuu dhahay Toshihiro. Kaana markaasi gacanteedii ayay kor u qaaday, iftiinkii ka baxayna wuu damay. Maya, waxaan ku dilay halkaa gacan gacanteyda kale ma isticmaalin. Toshihiro iyo Reen markaasi way is eegeen. Kaana indhaheeda waxaa ka buuxay xanaaq iyo sidoo kale go'aan. Markaasi Reen gadaal ayay u eegay, wuxuuna markaasi dhahay Kaana uma aysa jawaabin Reen. Markaasna waxay dareemaysay awood aad u tiro badan oo jirkeeda dhex socoto. Waxay markaasi heshay awood, waxaana markaasi la rabaa waxay ku samayn lahayd inay garato. Markaasna way dhoola caddaysay. Cadaabta ayaa loo diray. Marka maxay u isticmaali lahayd awoodda heshay si uga argoosato dadkii hooyadeed xumeeyey. Kaana waxay bilowday inay socoto. Markaas waxay maqashay sharqanta kabaha. Maya ayay ku tiri. Toshihiro iyo Reen meesha ayay istaageen. Waxay la yaabeen gabadhii markaasi cabsan jirtay oo hadda uu ka muuqdo cod awood ku jirto. Tani waa dhibaatadayda, waxaana rabaa inaan keligay dhammaystiro. Way sii jeesatay, waxayna bilowday inay socoto ayadoon gadaal soo eegayn.